بسم الله الرحمن الرحيم. أنا magacaygu yahay Mustafa Abdullaahi oo ka tirsan xarunta cilmi-baarista dhaqanka iyo sayniska Somaliland. Waxaan aad daraasad aan ugu sameynay bal haddaynan wax ka ogaano xanuunkan in badan adduunkii kaga qeylisiiyey. Waxaanu ilaa hadda maadaama wax xaruntii cilmi-baarista aan nahay aan soo ogaanay bal horta inaan dabagal ku sameyno origin ahaan waxaan halku ka yimid. Talabaad, qaabka uu u faafay adduunka uu ku faafay yaa sameeyey ma biological weaponba ma hub biological qaab dhaqaalo iyo diblomaasiyadeed oo adduunka ka dhexeeya loo isticmaalayaa oo dunida waaweyn horumartaya mise waxa weeyaan waxani wax iska yimi oo iska dabiici ah oo ka yimi khaladaad ka dhacay cunnada la isticmaalayo iyo hilibka iyo xayawaanka qaybo la isticmaalay oo aan jirka bini'aadamka u fiicnayn oo ay ka dhalan karto xanuun. Ma xanuun wuxuu ka yimi waxani xayawaan ayaa laga qaaday mise waa sanays. Aarahyo badan ayaa in badan adduunku iska weydiinaya. Ugu dambeyn intaanan gelin waxaan jeclahay inaan kaloo aan taabano xanuunka fayraska la yiraahdo qaabka u samaysmo iyo qaabka jirka bini'aadamka ugu faafo, hawadu ku faafaa, taabashadu ku faafaa mise labaduba ku faafaa, qaab sidee ayuu u faafaa. Ugu dambeynna maxaa ka dawaa iyo talo bixin aan soo jeedino haddii aan leeyahay. Zika virus in badan ayaa waxaa la sheegayaa in uu bilaabmay 2015 bishii October inuu ka bilaabmay Mareykanka markii ugu horreysay laga arkay. Xarun cilmi baaris oo Mareykanka ah ayaa ugu horreysay markii ugu horreysay heshay waqtiga kadib waa la control lab baa lagu control may suuragelin in markaasi ay dibadda u soo baxdo. Inkasta oo waqtigaasi oo Mareykanku ogaaday oo helay ayaa waxa dhacay bandhig la sameeyay xagga militariga ciidanka Mareykanka iyo China ayaa 15 bishii October 2019 magaalada Wuhan la yiraahdo waxa ka dhacay ay imika loo nisbeynayo inuu ka bilaabmay xanuunkani dowladda military oo labada ciidan ay sameeyeen. Kadib waxa dhacday markii uu bandhigay dhamaaday isla toddobaad gudihii in sariibada ugu weyn Wuhan waa magaalo China ku taala oo 12 milyan oo qof ay degan yihiin ayaa waxa ka bilaabmay xanuunkaasi la garan laayay. Dadkii oo ay xumad hayso facaya kadibna xumadii intii saad noqoto la qaadayo qaarkood ay dadka waaweyn dadka waaweyn immune system-koodu aad u hooseeya ay dhimanayaan. Ciyaalkii yaryar iyagana markaas immune system-koodu soo korayay iyaguna xaalad adag gaarayaan ayaa waxa la yiri dowladdu inay ku dhawaaqday noqotay inay faafiso tiraahdo xanuunkaasi outbreak ah. taas waa waji ay leedahay. Waxaad ka garan karaysaa wasaaradda arrimaha dibadda ee China nin diblomaasi ah oo u hadlayay ayaa wuxuu bartiisa Twitterka ku soo qoray imso qof ayuu Mareykanka ku laayay markii uu yimi coronavirus adasheen. hadalka su'aashaasi waxa uu ku socdaa ninka maamulka ka ah xarunta cilmi baarista iyo ka hortagga xanuunada dabiiciga ah ee Mareykanka oo la yiraahdo Dr. Redfield su'aashaasi kama jawaabin.
sid صراحة oo si su'aasha loo weydiiyay kuma jawaabin laakiin si qaab kale ayuu dhigo wuxuu yiri sidan imika ay tahay ayuun buu ahaa marka hore imikana wax iska bedelay ma jiraan hadal qaab noocaas oo kale ah oo diblomaasiyaysan ayuu ugu jawaabay ninkii arrimaha dibadda ee China la hadlayay على كل حال arrintani inta badan waxa loo nisbaynayaa in ugu horeystii laga ogaaday Mareykanka ama iyagu ha sameeyaan ama mid iska dabiici oo iska sameeyay maaha halkaas ayuu kadib waa la kontrolay may dhicin la faafiyo laakiin arrinkan China gudihiisa ka dhacay ayaa waxay noqotay in markii hawshaasi ay bilaabantay ina bilaabo waxa la leeyahay marka arrin diblomaasiyadeed oo dhinaca dhaqaalaha ah ayaa biological weapon qaabkan oo kale inta loo sameeyay ayaa la doonayay markaasi in qaab una qabatayna oo dhaqaalaha iyo dhaqaalaha China ee socda lagu kontrolo laakiin sameeyay in xanuun buu noqday oo fiday China imika waxay leeyihiin anagu waan kontrol waanu dhamaystirnaa hawshiisa ninka arrimaha dibadda u hadlayay China isagoo hadalka wuxuu raaciyay markuu intaas sheegay anagu mas'uul kama nihiin faafitaankiisa laakiin sidina ayaga waanu kontrolnay diyaarna waxaanu nahay inaan dadka ka caawino waxyaanu karan marka xanuunkani waa virusku wuxuu ku dhacaa asalan hidisidayaasha qofka bini'aadanka ay ku dhacaa u dhacay mar alla marka soo awtaa jirka qarax ku sameeyaa dabeedna uu sii bataa qaab wuxuu noqon markaasi in hawadii oo raaco taabashadii uu qaabo waxa la wixii dheecaan leh oo dhan ayuu ila taabto ayuu galayaa dhinacii kale breathing ee hindisay ayuu isagana soo galayaa qofcii buu galayaa hawadu sii raacaya marka faafitaankiisa waxa uu aad u bilaabmay bishii 6 laga bilaabo 6 bishii 2 laga bilaabo ilaa hadda aad ayuu fidaya siiba Aasiya iyo Yurub Mareykanka oo imika maalmahan ugu dambeeyay oo aad isagoo soo galay ayaa aad looga dayranay dhinaca kale markaynu ka eegno xanuunkan la leeyahay waxa weeyaan virus oo xanuun hadda soo baxay la leeyahay waxa uu inta badan jirta xikmad rabbaaniya oo Ilaahay ku tala galay qof dadka bini'aadanka ah inay mar walba ku taagnaadaan tamacaydu waxa weeyaan waxa dadka islaamka laga xaraantimiyay inay cunaan waxa beedka iyo dhiigga iyo doofaarka sababta loo xaraantimiyay sidan loogu xaraantimiyay ilaa hadda way isticmaalayaan waxayna og yihiin sababta loo xaraantimiyay Ilaahay xaraantimiyay inay wax badana tahay dhiigga isagoo aynu qaraana waxa uu sidaa wax allaala wixii wasakh ee jirka ku jira noolahaasi ayuu dhiiggu wadaa cunitaankiisa markaasi toos ayaa xanuun sida dhiiggaasi looga qaaday khinsiirka oo doofaarka isaguna waa la mid bahashan la yiraahdo fiidmeerta oo iyaduna gudbiyo weyna oo kii waqtiyadii hore uu ka bilaabmay xanuunadu ay ka bilaabmay ilaa hadda laba virus oo ugu waaweyn SARS-ka la oran jiray iyo kaniba loo aanaynayo ayaa isaguna ka mid ah fardaha ka mid ah ayda dad cunaya xayawaanka noocaasi oo haddana scientifically oo in uu xanuuno leeyahay waxyaalahaas ay leeyihiin
مثلا tusaale aynu soo qaadano duriga waxaynu dhahnaa ama hargabka waxay yiraahdaan wax laga qaadaa waxa gudbin kara bay yiraahdaan digaaga halka HIV-ga oo xanuunka weyn ismuna fayraska ah laga keenay oo ka yimid marka hore jafansiga daanyarka okay oo Ebola oo isaguna China laftiisa ka bilaabmay ayaa waxay leeyihiin wax ka bilaabmay fiidmeerta ka yimaado marka wax kood buu ay sameeyeen Sofik 19 bay raadaan COVID-19 bay raadaan wasalkiisu waxa uu fayraskana ka yimid bay raadeen waxa fiidmeerta leedahay waa dad cunaya wax wal oo socdo oo dhaqaaqaya uma eegayaan waxaan xataa hadayna de islaam baahayno inay diiniye baxda qaadanay islaamka ma eegayaan xataa scientifically waxaan faa'iido jirka ma u leeyahay mise waxtar buu mise waxtar laan buu leeyahay مثلا fiidmeerta ayaa la cunaa bahalka xoorka la yiraahdo ayuu gudbisay xoorkii dibadda digaaga u soo gudbiyay digaagii iyo xoorkii iyo fiidmeertii left hilibkoodii wax lagu hayaa oo ahaan halkaas dadka isticmaalay marka laakiin si jirka bilaadanka uu qabo already infected ku noqdo qofkii waxa weeyaan xanuunkii uu qaado hawadu galaya oo kuma bilaadanku isdhex socdaan halkan uu ka soo tuulaya meel kale oo imanaya dabeedna waxa uu bilaabayaa in uu xanuunkii markaas si degdeg ah uga bilaabmo waxaan oo kaliya kuma eegaan magaaladaas in 12 bilyan oo qof ay degan oo kaliya kuma eegaan isla toddobaad gudihiisa wuxuu gaaray Aasiya iyo Yurub iyo Afrika qaybo ka mid markii uu galay xanuunkaas halkaas saliska marka uu galo proteinka salka DNA-da iyo RNA-da marka uu taabto waxa uu sameeyaa qarax qofkii wuxuu soo tooraya intaas oo bilyan oo microbe oo ay hawada ku siiteenay wasabta maas loo kashado yaan islaami loo leeyahay hadii in yaro dhidida gacantada ay leedahay qof taabto iyaduna waa lamid laakiin modulka qabo oo kaliya buu ku eegay dhinaca cimilada mise waxa weeyaan meelaha qabow iyo meelaha qoys ku mid weeyaan taasi waa scenario gaar ah umarayn maayo in meelaha dhulka hoose ah ee loo elevationka dhulka inuu soo gaaray sidii SARS oo kale inuu ayaa suuragal oo la arkaa laakiin khasaaraha uu gaarsiinayo bilaadan ayuu uga badan yahay kay SARS-ka hadda waa sababta markaas loo xiray masaajidada iyo meelaha lagu cibaadeysto oo kale dhinaca markayna eegno taariikh ahaan geological waxay yiraahdaan Mesozoic era wax la yiraahdo jira oo waqti laga joogo 60 milyan oo sano hortay waqtigaasi ku xiga waxa la yiraahdaa Cenozoic era oo waqtigeedana Cenozoic era ilaa hadda fayraska noocan oo kala laguma hayo dunida waqtiga laga soo bilaabo ilaa hadda way waqtigaasi waqti waxay hayeen bakteeriyada iyo virus aku hayeen ay ku fara badnaayeen makhluuq kaliya baa hayeen waqtigaas ee jirtay laakiin waxa kaliya ay leen jireen wixii kale ee waqtigaasi la noolaa madana soo saxaadaan ama makhluuqii kale badda ku hoosteeda ku noolaa halkaas iyo waxyaalahaas xanuunkaasi waqtiga laga joogo 8 milyan sano hortay ilaa hadda mid lamida ma soo bixin inuu arko هذا لو باهي على باهي هاي صدق قول أنا حقنا صومالي عن وحن لنا أصل با دول
iyo cimilo dabiici ah oo ilaahay nagu noolaysay. qaabka aynu u isticmaalano waxyaalahaasi aynu iminka soo sheegnay ee ay suuragal tahay in laga qaaday maba lihin ba already. nagu doofaarna ma isticmaalno, fiidmeertana ma cunno, faras iyo ayna hilibkiisaba. laakiinse waxaan sourceka ka yimi maadaama uu kaa ahaa imika lenba taagnay ee wuxuu taagan yahay neeftii baa lagu kala qaadayaa oo salaantii baa lagu kala qaadayaa bay taagan tahay. waxa inoo habboon mar walba in aynu taxadirkeeda aynu yeelano. goorta waqtiyada aynu kaa qaybsanno, iminka waqti jiilaala aynu ka baxnaa, waqti guyaynu gelana. waqtiga guga marka uu bilaabmo waxaa dhacaya in cayayaanka xasharaadka sida kaneecada oo kale ay fayraska soo qaato, sida zika viruskii la oran jiray oo kale, inay soo qaato qofka ay dabeedna aan xanuunkaasi qabin ay ku tallaasho, qofkaasina u qaado. kuudiyanu bixina kuudiya waxaan ugu bixina maadaama curuqda iyo ku dhacayo iyo dhabar xanuun xumad badan uu leeyahay ayaynu u bixinay kuudiya. inta badan manaynu dareensanayn ilaa waqtiyada dambe bandhigaan samaynay marka laga reebo maynu dareensanayn in waxaan kuudiyaha la leeyahay wax faariso oo kaneecadu ay keenayso. kaneecada dhadig ayaa keenaysa. fayraska laftiisa hadda waa taagay balshan baa ku dhacay, laakiinse hadda uu soo noqon karaa. maxaynu u baahannahay kan cusub ha ahaado ama kii hore ha ahaado, waqtiyada roobka uu do-o in wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda deegaanku ay iska kaashadaan in nadaafadda qashinka dareeraha ah iyo kacadkahaaba loo maareeyo si aad iyo aad taxadir leh. matalan hargeysa labada cidhif ayaa lagaga kala daadiyaa. meelna waxaa ka soo dhacda dabaysha guga, meelna dabaysha jiilaalka ayaa kaga soo dhaca. labaduba waxay soo qaadi karaan xanuunadaasi fayraska ee ka dhalanaya ee fayrastiska ayay soo qaadayaan. si taas markaa looga hortago waa in ay iska kaashadaan wasaaradda caafimaadka iyo deegaanka iyo dowladda hoose si adag iskaga kaashadaan. xarumaha cilmi baadhistana lala soo xidhiidhaa oo toos hawshaasi iyaguna ay u galaan madrasadeedii sameeyaan. gun iyo gabagabo 3 qodob baan idiin sheegay. xanuunkan fayraska inagu waxaan ku wanaagsannahay waxaynoo dhan waa wada dabiici. cuntadeennu waa dabiici, dhirteennu waa dabiici, biyaheennu waa dabiici, wax walbaa dabiici ayaynu isticmaalno. aynu isticmaalno wax wal oo dabiici. kalluun markaad isticmaalaysa matalan, kalluunka badda ka soo baxay toos isticmaal. kadaasib ku jira emailka ee dal kale kaaga yimi ha qaadan. معهم contaminated إنه غير صورة. لين مركاتونس ما نقاه دورا لين معان أملي لا تسوق هذا سيدي أمي روعة لبا شيء نعنوانه شيء لا يراح ضد عرضه أما الصبر له سيدك غروي قانان حرمان لقوا يبير تداوي iyo toonta. labadaas shay waxa ku soo raaca khamuunta nooca la yiraahdo khamuun Soomaaliga iyo leendanaantii khalka. intaasi oo aynu isticmaalno cabitaan iyo xataa marsasho inaan gacanta ku dhaqano oo kale aynu isticmaalno ayaa aad precaution weyn iyo kahortag weyn inoogu ah faafitaanka wax walba ay fayraskeena ama bakteeriya keento. waxaan jecelahay bandhig inta ka weyn haddii la yiraahdo inaan iskugu imo doono 7 gudihiisa
oo aynu sheegi doono waxyaalo badan oo inaga inoo ah mid aynu ku daryeelano ama ku ilaalinano dadkeena iyo deegaankeena aynu kaga ilaalinano waxyaalo badan oo khatar ku ah oo kuwan imika xanuunada jira ha noqdo ama kuwo kale oo aynu ka rajeynano isbeddelka cimilada kuwa ay keenaan insha allah fadhigeeda samayn doono ilaa intaynu waqti kala kulmano wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.